ruux kale aan u baahanahay ma jirto intaan adiga ku haysto. waxaad tahay riyada aan dhamaadka lahayn. waan ku jeclahay, weliba waxaan ku jeclahay sida ay hooyo u jeceshahay ubadkeeda. runtii waxaad tahay qoftii ugu horeysay ee aan jeclaado iyo qoftii ugu dambeysay ee aan jeclaado. way igu adag tahay inaan saacado ku waayo. wax walba oo aan u baahanahay waa adiga. qalbigaygu waa miskiin markaad adiga ka maqan tahay. waan ku xiisaa markii aan kula joogin adiga ayaan kaa fikiraa. markii aan kaa fikirana waxaan doonayaa inaan kula joogo. kama fogid agagaarka wadnahayga. waxaan kuu dareemaa sida aan u dareemo garaaca wadnahayga. habeen iyo maalin kama baxdid qalbigayga. waxaad ku soo noqnoqotaa niyadeyda sababtoo ah aad ayaan kuu jeclahay. waxaad tahay farxadeyda, waxaad tahay noloshayda, waxaad tahay daawada qalbigayga. dadka waxay riyoodaan markii ay hurdaan oo indhaha isgeliyaan, laakiin aniga bini'aadinka taas waan kaga duwanahay. maxaa yeelay qalbigayga asigoo soo jeeda ayuu kugu riyoodaa, sababtoo ah xusuusteeda iyo maskaxdeyda ayaad meel adag kaga degan tahay. waxaad tahay qofta keliya ee aan isku haleyn karo. waxaad tahay farxadda noloshayda. waxaad tahay qofta keliya qaaska ii ah. aniga adiga ayaa i leh, adigana aniga ayaa ku leh. waan kuu xiisaa mar walba. keliya inaan kuu xiiso waxaan joojin karaa marka aad ila joogto. waxaad tahay riyada aan mar walba ku riyoodo. waan ku jeclahay. xitaa daqiiqada ugu dambeysay ee noloshayda waxaan ku dhihi doonaa waan ku jeclahay. waan ku jeclahay. waan ku jeclahay.